kadib markii uu soo idlaaday socdaalkii uu maalmihii ugu dambeeyay ku mareeyay gobolada bariga Soomaaliland wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xagle Toosiye ayaa maanta kormeer kuurgalida xaaladda caafimaad iyo dardargelinta howlaha shaqo ee isbitaalka guud ee magaalada Burco uu ku tagay waxaanu halkaasi kulamo xog waraysi kula qaatay dhakhaatiirta iyo mas'uuliyiinta isbitaalka guud ee magaalada Burco markii uu soo dhameystay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xagle Toosiye kormeerkii ugu kuurgalayay xaaladda guud ee isbitaalka magaalada Burco waxa uu halkaasi kula hadlay warbaahinta qaybaheeda kala duwan isagoo faahfaahin ka bixiyay xaaladda guud ee isbitaalka iyo waliba qorshayaasha mustaqbalka ee xukuumaddiisa safarkayga aan halka ku yimid waa safar shaqo kormeer isbitaalka Burco ujeedadiisuna ay tahay inaan dardar gelino adeegyada caafimaad ee isbitaalku bixiyo isbitaalka Burco waa isbitaal weyn oo meelo badan looga yimaado waana mudnaan priority number 1 ayuu yahay wasaaradda in adeegyadiisa caafimaad kor loo qaado iyo in dhismihiisaba la balaariyo oo la kordhiyo marka safarkaygu waa wuxuu la xiriiraa shaqaduna way ka socotaa adeegyadu way ka socdaan 22 dhakhtar baa jooga oo reer Soomaaliland iyo ajnabi ah waxaan oo qorshaysan inaan kordhino hadda magaranaysa adeegyada caafimaad waxaanu rafashaanu ku soo jirnay waxaanu ka faa'iidnay ka bixida MSF ka baxday isbitaalka Burco waxa kamid ah in haday dhacdo mustaqbalka hay'ad doonaysa in isbitaalka rangarayso qorshaheedu uu yahay mid ku dhisan ama ku salaysan in hadii hay'adaasi baxdo oo isbitaalku sii socdo oo hay'adu la timaado qorshe ah haddaan ka baxo isbitaalku sidan uu sii soconayo qorshaha isbitaalkan Burco imika aanu hadda ka wada hadlaynay maamulka iyo dhakhaatiirta oo shirku hadda halkan ugu dhamaadeen waxa weeye in isbitaalkan xukuumad ahaan waxaanu anagu awoodno aanu gelino qorshihiisuna noqdo inuu noqdo mid isku filan oo aanu baahnaynba hay'aduhuna runtii wax badan bay qabtaan laakiin wax badanna ma qabtaan way Barwaaqo Aadan Maxamed shabakada caalamiga oo News magaalada Burco.